halkani waa London oo idinkala hadlaysa laba mawjadood oo gaaban 11 iyo 13. barnaamijkii suugaantee toddobaadkii hore waxa aad maqasheen intiinii dhegaysanaysay akhyaartana dhegaysatay qaybtii hore ee waraysigii hadalka iyo heesaha isugu jiray oo aan muddo dhowr iyo 10 sannadood laga joogo magaalada muqdisho kaga soo duubay fanaanka dalka Soomaalida iyo meelaha kale ee ay dadka Soomaalidu degan yihiinba caanka ka ah ee Maxamed Saleebaan Tubeec oo sanadahan dambe ku nool dalalka Yurub. qaybtaas horena waxa uu inooga warramay siduu fanka ku soo galay iyo halkuu ka soo bilaabay oo magaalada Djibouti ahayd. waxaanu dhowr midba bayd iyo laba inooga qaaday heesihii ugu horreeyay ee uu ku qaadi jiray sanadihii 50-kii iyo 60-kii. waxaana sheekadu inoo joogtay si xog gabaya oo uu aabihii Saleebaan Tubeec oo gabaya ahaa uu u tiriyay adeerkii oo uu taageero kaga doonayay mar la xidhay. marka bal hadda aan qaybtan labaad ku bilowno jaxaad gabayga waraysigaasina halkaas haynooga sii socdo. mar waxaa jirtay oo adeerkii u gabiyay oo waxaan reer berberaan ahaan jirnay. marka mar adeerkii uu gabiyay oo Saleebaankii baa la xidhay ingiriiska xidhay. markaasuu rabay adeerkii inuu u yimaado yani oo soo boqdo. markaasuu odhan jiray waan ku iman doonaa habeenkaas ku dhaxabo oo jiro fariin buu markaasuu wuxuu yidhi أوحلي صفات دنيا دي صبح وعيني وحدي مسلان تبريو سدن باني ماني بنتي صدكا لغا ديغاد إبو سابي ساي هاي سوفين هذا الكابوا سنيو وبي ومركز هاي يعني وكل مرة مربى وكل waxaa jiray ingiriiska ay ku xiri jiray dadka silsilad buluuga ka xiri jiray ama jamacada qofkii laga dalmiinto silsiladaas qof yaaniga la yaqaan ka dalmiinto silsilada waa laga dhaafi jiray. markaasuu waaliga inuu imaano silsiladii kamuu dalmiino Saleebaankii. markaasuu silsiladii baa ku xidhay markaas Saleebaankii. markaa wuxuu yidhi adimada birbaayiga gajaban agab la'aanide egad baa la ii oodayo la igu eegaade ardaygaba haddaan macalin wadin ma aflaaxin diinde usha kulul haddaan lagu gubin erey ma yeeshiinde anigana sidii hori dumar edislaaye agabay la yaab leh. jawaabtii markaa maxay noqotay? markaasuu odayga loo sheegay gabayadii. markii gabayadii loo sheegay buu yimid yiri waa ma gabay buu igu bilaabay birbaba isagoo yaro. markaasuu yimid oo bertii uu ka damiintay oo yimid. marka odayga gabayadii soo badnaa xitaa waxaa jiray gabay oo nin u tiriyay la oran jiray Allah naxariisto xuseen rees oran jiray si suuriyada ka helay amal goobadeed aqliga kaama guuray malawaan iyo socone waago casaado shamsada coonka nagu keentay akthar jinki intuu walba ka yaadinkii magayadiisi aad ma hay laakiin badnaa gabayis. marka odayga sida gabaya u ahaa. marka waxaa la oran karayaa musican iyo midhahan iyo heesahan samayso la yaab kale waa hiddo oo aabahaba kara. dabcan waa dhici karta waayo oo qof waa inuu kulay waalidkiisa uu tartiib ku yeesho maxay oo xubno kamid ah inuu ku yeesho way hooyada ka waraniyo islaantu waa brambulka taqaana. waxaa jirta xataa gabay mariyada islaanta ku dheeyo tiriyay shaqadan ay sifaha dunyada subaxba waayeen shaqadan ay haween mala wanaag ama sawaayeen aniga waayada hore sida igala weyneeday anigu lama waalin ninka waafiyaanahay bal iswaan xaajada halkan isku waayeen brambul marka yaro ugu jawaabay brambul ugu jawaabay ay baqaxda brambul ka bacad